بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وناكسن صاحب بيال ميل كستو أتشوكتان باكون سو دوادا وركا دونيدا سومال نيوز تي في qodobada markan aan ku haynana waxa kamid ah shirka wada tashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo cabashooyin sii kordhay oo ka imaanaya Soomaalida la nool cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS wararka caalamkana waxa ugu waaweyn Turkiga oo dhagaha ka furaystay weeraro dhinaca afka ah oo uga imaanaya muwaadiniin u dhashay dalkaasi oo ka dhan ah kana laga hirgelinayo magaalada Istanbul iyo xiisadaha Iran iyo Mareykanka oo markale heegada isku shareeray kadib weerar lagu qaaday dagaalyahano ay taageertay Iran qodobadaasi wixii soo kordhayaan warkeen kugu haynaa u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan markale kula wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada warka oo dhan shir looga arinsanayo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka qaran ee la doonayo inay dhawaan ka qabsoomaan Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirka oo ay ka qayb galayaan dhinacyada xubnaha ka ah golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayaa furmay kadib markii wada jir loo xaliyay tabashooyin dib u dhigay goor hore oo la doonayay inuu ka qabsoomo isla magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maamulka Hirshabeelle ayaa horay u dhaliilay sida ay ku socdaan hawlaha lagu dhaqaajinayo geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya waxa uu sheegay inuusan ka qayb gali doonin isla markaana go'aanada ka soo baxay aysan quseyn doonin hadii ay yiraahdeen aan la xalin tabashooyinkeena Hirshabeelle ayaa go'aankiisa ku sababeeyay in aan lagala tashanin qorshaha shirka hase yeeshee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddu ay maamulkaasi ka raaligelisay tabashooyinkiisa isla markaana ay ku qanceen qoraalka ayaa waxa kale oo lagu sheegay in shirka oo ay ka qayb galayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka Banaadir iyo dhinacyada mucaaradka looga hadlayo dardargelinta hawlaha doorashooyinka la wada sugayo ee la doonayo inay ka dhacaan Soomaaliya waxa kale oo lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble in shirka la isaga wareysan doono waxyaabihii ka hirgalay heshiiskii dhinacyadu ay gaareen 27kii bishii May ee sanadkan aan ku jirno ee la iskula meel dhigay habka doorashooyinka la qabanayo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo indhawaalaba ku sugan dalka Turkiga ayaa raaligelinta kadib ka qayb galaya shirka kaas oo isaga oo jooga Turkiga uga qayb galaya adeega loo yaqaan Zoom-ka ee isku marka ay iska arki karaan iskana maqli karaan wadar dad ah oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah shirka wada tashiga qaran ee maanta ka furmay Muqdisho ayaa waxa ku idil xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaysa hawlaha doorashooyinka maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir waxa iyaguna shirkaasi qayb ka ah xisbiyada mucaaradka waxaana gudoominaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shirkan oo indhawaalaba Soomaalidu ay ka warsugaysay ayay qabsoomidiisu waxa ay diidiila gelinaysaa dhinacyada siyaasadeed iyo shacbiga waxaana looga fadhiyaa ka qaybgalayaasha natiijooyin wax ku ool ah oo suuro gelin kara in horay loo wado hawlaha doorasho qaran oo ka dhacda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan waxa sii kordhaya cabashooyinka ka imaanaya dadka Soomaalida ah ee la nool cudurka halista badan ee dilaaga ah ee HIV/AIDS kaas oo si baan u saameeyay malaayiin qof oo ku nool daafaha kala duwan ee dunida bukaanada Soomaalida ah ayaa cabashooyinkooda ku sheegaya in ay bulshadooda kala kulmaan takoor iyo bahdilaad joogto ah sida ay sheegeen ugaba sii daran dhibaatada uu ku hayo xanuunka dilaaga ah ee la nool yihiin cilmi baarisyo dhowr goor oo kala duwan laga sameeyay arrintaasi ayaa waxa lagu shaaciyay in ay jiraan dhibaatooyinkaas iyo kuwa kaleba cilmi baarisyadaas ayaa waxa kale oo ay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay keenayaan in dadka oo ka baqanaya in la takooro ay u bareeri waayaan in had iyo goorba ay iska baaraan cudurkaas ama kuwa qabaay ay la dhuuntaan oo ay toos ula xiriiri kari waayaan goobaha caafimaad ay suuragalka tahay in ay ka helaan daawooyin kaalmeeya difaacooda xanuunkaasi wiiqay daraasaduhu waxay intaasi ku darayaan in dhibaatooyinkaas oo sii kordhay ay keeni karaan xanuunka oo sii kordha ugu dambeynna uu gaariba karo xad la xakameyn kari waayo ugu dambeynna waxa ay ku talinayaan in loo baahan yahay wacyigelin wada jir ah oo si joogto ah loogu jeediyo bulshooyinka Soomaaliyeed hadii kale sana ay yiraahdeen waxa laga yaabaa cudurkaasi in uu sii faafo oo uu gaaro xad aan waxba laga qaban karin una saameeyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan wararka caalamkana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan xariga ka jaray mashruuca kanaal looga dhisayo magaalada Istanbul si loo yareeyo saxmadda ka dhalata marinka mashquulka badan ee ku yaala gacanka magaaladaasi
mashruucan oo baaxad ahaan ku fadhiya 45 kilomitir ayaa hirgelintiisa waxaa ku bixi doonta adduun lacageed oo gaaraya 15 bilyan oo dollar. madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ku sheegay mashruucaasi mid aad iyo aad loogu hawan yahay kana shaqeynaya danaha guud ee dalka Turkiga. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadal ka jeedinayay furitaanka mashruuca ayaa waxa kale uu sheegay in dawladda iyo shacbigiisuba ay u arkaan in mashruuca kanaalka Istanbul uu yahay midkii mustaqbalka badbaadin lahaa magaalada uuna bog cusub u furayo sooyaalka Turkiga gaar ahaan dhinaca horumarka. sida ay sheegtay dawladda Turkiga mashruuca oo hirgelintiisa ay qaadanayso 6 sano ayaa marka la dhameystiro waxa maalin kasta ku gooshi doona ugu yaraan 160 markab oo isugu jira noocyada kala duwan ee maraakiibta. dhinaca kale dad Turkish ah oo isugu jira beeraley, kalluumaysato iyo ganacsato ayaa waxay ku andacoonayaan in mashruucaasi uu burburinayo beero iyo tuulooyin badan uuna baabi'in karo noolo badan oo ku nool biyaha badda kuwaas oo qayb ka ah kheyraadka dalka. dad kale ayaa iyaguna waxa ay ku doodayaan in dawladda Turkiga ay ku degdegtay hirgelinta mashruucaasi oo ay horseedayso ayay yiraahdeen inuu Turkiga ku soo jeediyo indhaha caalamka iyo inuu keeno cadaawad Turkiga uga timaada dawladaha daneeya in had iyo goorba iyagu hogaamiyaan oo maamulaan dhaqaalaha dunida. dawladda Turkiga ayaase waxba kama jiraan ku tilmaantay aragtidaasi oo dhan waxa ayna sheegtay in mashruucu horseedayo awood dhaqaale iyo horumar uu Turkigu yeesho. dawladda dalka Turkiga ayaa horay waxa ay qorshaha lagu hirgelinayo mashruucan meel marisay bilowgii sanadkan aan ku jirno ee 2021. ku dhawaad 10 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen weerar dhinaca cirka ah oo ciidamada Mareykanku ay ku qaadeen maleeshiya Iran taageerto oo ku sugan xuduuda ay wadaagaan dalalka Iraq iyo Syria. weerarka ayay wararku sheegayaan in uu dhaliyay baaqiyo degdeg ah oo argoosi ah isla markaana uu sare u qaaday cabsida laga qabo inuu ka sii daraan xiisadaha cakiran ee muddada dheer ka dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran. duqeynta oo ah tii labaad oo nooceeda ah oo la beegsado bartilmaameedyo ay taageerto Iran tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon waxa uu ku qeexay kuwa argudasha. dhinaca kalena weerarkan iyo xiisadaha ka dhalanaya ayaa waxa ay dhacayaan iyadoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu soo nooleeyo wada hadallada iyo heshiisyadii ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo Mareykanka. afayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa war qoraal ah ku sheegay in 3 xarumood oo military oo ay adeegsadaan maleeshooyin ay taageertay Iran la garaacay. afayeenku waxa uu tilmaamay in mid ka mid ah xarumahaasi ay ku taalo gudaha dalka Iraq halka labada kalena ay ku yaalaan Syria. waxa kale uu sheegay in weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan maleeshiyo ay Iran taageerto oo ku lug leh weeraro ay yiraahdeen loo adeegsado diyaaradaha dhulka laga maamulo ee drone-ka loo yaqaano oo lagu qaado shaqaalaha iyo xarumaha Mareykanku ku leeyahay gudaha dalka Iraq. afayeenka oo hadlay waaxda gaashaandhigga ee Mareykanku waxa intaas ku daray in Kataib Hezbollah iyo sidoo kale Kataib Sayyidul Shuhada oo ah laba kooxood oo hubeysan oo Iraaqi ah xiriir dhowna la leh Iran ay qayb ka yihiin maleeshiyada dhowr ah oo Iran ay taageerto. sida ay sheegtay idaacadda VOA oo xiganaysa wakaaladda wararka ee AFP qorshayaasha lagu fulinayo danaha Mareykanka ee gudaha dalka Iraq oo ay ku sugan yihiin 2500 oo askari ay wararku sheegayaan in sanadkan lagu qaaday ilaa 40 weerar oo isugu jira kuwa loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyuhu saarnayn ee drone-ka iyo gantaalo toos ah. warkiina xilligan waa naga intaanu mar kale ku kulmayno warkan kiisa kale waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum.